و19 bisha Maarso sanadka 2023 waxaan joognaa Bayra oo ka tirsan degmada Gaalkacyo aniga iyo qaybaha kala duwan ee mas'uuliyiinta Bayra gudoomiyaha ku-xigeenka maamulaha iskuulka Bayra madaxa MCH-yada oo aanu hadda ka nimid meesha la teerade qaybta arrimaha bulshada dawladda hoose degmada Gaalkacyo iyo mas'uuliyiinta kale ka hoos shaqeeya arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada madax waxadeeda u qaabilsan dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ujeedada halkan aan u joogno waxa weeye inaan daah furno dayactir lagu sameeyay iskuulka Bayra oo ay saaxiibaday sheegeen detailkii ama faahfaahintii waxaan marqaati ka ahay in uu kambaniga Hilaal Construction oo si fiican hawshan u qabtay jazakallah waxyaabo maartay jiray oo dhaliilo ah markii u horeysay oo la sameeyay qiimeynta oo dib noogu soo noqdayna inay runtii iyagii iskuulku iska kaashadeen oo ay qayb libax ka qaateen oo qurxiyeen shaqadii waxaan leeyahay Allah idinka abaal mariyo si fiican baad u sameeyeen waxyaabihii dhimanayo markaas qiimeynta lagu soo daray maanta iyo maalintii aanu halkan nimid oo aanu dhagax dhigaynay waxa u dhaxeeya faraq weyn iskuulka Bayra gaar ahaan qaybtaanu hadda taagannahay oo barandadan aysan ka mid ahayn waxyaabihii qiimeynta lagu sameeyay ay ahayn qolalka kaliya laakiin si isku tashiya ay kambaniga iyo iskuulka iyo runtii ay qayb weyn uga qaateen hawl fiican baa halkan ka dhacday waxa uu barnaamijkan qayb ka yahay barnaamijka GBLG-ga oo degmada Gaalkacyo ay wado 7 goobood oo caafimaad iyo waxbarasho isugu jirta ayaanu dayactir lagu sameeyay qaarna maartay la sameeyay maartay deydad la dhisayay dhamaantood waxaan filaynaa maanta waa meeshii labaad baan joognaa hadda qaybaha kalena waa sii mari doonaa maanta ayaanu dhamaantood daah furi doonaa gaar ahaan iskuulka Bayra Primary School waxa uu ka mid yahay secondary school secondary primary labadaba isugu jira waxa uu qayb ka yahay iskuulada dawladda hoose sida gaarka ama sida tijaabada wasaaradda waxbarashadu ay ugu soo wareejisay oo wada shaqeynta hoose la yeelan doono sidii ayaad ula shaqeyn doontaan wasaaradaha aad la shaqeynayseen wasaaradda waxbarashada laakiin shaqooyinkii ayaanu qaybsan doonaa dayactirka iyo qalabaynta iyo baahiyaha haddii ay hay'adu ka baxdo si aan u sii dabooli lahayn mid kale in la helo iyo waxyaabo badan oo dhinaca maamulka ah waxay hoos imaan doontaa degmada Gaalkacyo qaybteeda arrimaha bulshada ayaa iskuulku arrimahaas ka saaciidi doona arrimo badan oo ay wasaaradda waxbarashadu sidoo kale isduwa wasaaradda waxbarashada ee gobolka iyo degmadu ay horay u hayeen way hayn doonaan si iskaashi ah wixii idinka dhiman oo markaas awoodeena ayaanu soo kordhin doonaa insha Allah waxaan filaynaa in mashaariicda soo socotana aad qayb ka noqotaan intii tabartiya waa dadaali doonaa haddana hawl fiican baa la qabtay sidaas wada shaqeyntu noqon doontaa wasaaraddiina waa inala shaqeyn doontaa waxba la kala ordimayno inaguna degmo ahaan wixii aanu qaban karno ayaanu qabanaynaa insha Allah ilaah baa wax guuleeya dhamaanteen waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ku ilaahay guuleeyo naga mid dhigo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu